sharciyadaas iyo hadalkii madaxweynaha hay-adaha ammaanka ee laga rabo inay fuliyaan awaamirtaas ayay kow yihiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed saraakiisha maanta waxaa la kulanay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed noo soo guddoomiyay saraakiishana awaamir ku siiyay in sida ay tahay loo fuliyo amarkaas waa uu bilowdo howlgalkaas waxaan u sheegaynaa oon gaarsiinaynaa ciidamada kala duwan ee qoryaha wata ee magaalada qoryaha ku dhex wata inay xeriyooyinkooda qoryaha ka soo tagaan hadday ahaan lahaayeen booliis hadday ahaan lahaayeen nabad sugid hadday ahaan lahaayeen ciidanka xoogga dalka iyo hadday ahaan lahaayeen military aslan bal lagumana arki kara magaalada qofaan intaasoo ciidan ahayn marka iyo ciidamada dowladda hoose shantaas ciidan aan ahayn qofan ka diiwaan gashanayn magaalada laguma arki karo qorigii lagu arko aan ka diiwaan gashanayn shantaas ciidan ka diiwaan gashanayna waa lala wareegaa صح ما شاء الله waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada booliiska nabad sugidda asluubta iyo dowladda hoose qof shacaba oo qore wata lama ogolo waa sharci darro شريطة ما شاء الله أول sharci darro haddana waa la qabanaa lamana ogolo in la sii daayo qoriga aan sharciyad loo haysan oo kale oo la qabto sidoo kale waxaan u digaynaa ciidamada halka u socda oo mootooyinka saaran inay ka joogaan oo joogsadaan oo xerooyinkooda qoryaha ku soo reebtaan waxa ku dhex dhuumanaya hal iyo labo aad og tihiin oo xumaan ka shaqaynaya sida la socotaan maalin dhawood waxaa dhacay ciid askari labisan oo ka tirsan ciidamada ayaa dhac bareera u geysanayay xarun ganacsi waa la soo qabtay markii la soo qabtana wuxuu noqday askari shaqo ka soo degay markaasuu shaqo ka soo degay hor u maray لا إله maxaa diidaya haddaad qor inta soo qaadato aad hore usii marto guriga usii marto dukaanka hore usii marto aad rabto in lagu qabto askari kasta waxaa la rabaa inuu xeradiisa qora uga soo tago askarigii la qabta ee la geeya saldhigga booliiska ee qoraga laga dhigo taliskiisaa lagu wareejinaa ciidanka xoogga dalka ka tirsanaa isagaa lagu wareejinaa kuwa nabad sugidda kuwa ka tirsanaa lagu wareejinaa kuwa booliiska lagu wareejinaa askari kasta oo socda ee la qabto wuxuu ogaadaa inuu xabsi galaayo lana xiraayo صح waxaa soo artay ciidamada militariga booliisa militara nabad sugidda iyo booliiska hawlgalka uga jira magaalada askariga qabtaa inuu qoriga dhiibaan rabaa inuu qoriga dhiibo u dhaanay askari anaa xaggaasan ka tirsanay hadduusan askari ahayn inuu qoriga iska dhiibaan rabaa waxaanu arkaynaa midkii diida tuuga iyadoo la baadi gooba wax soo dhacay inuu tuuga asagu yahay ha iska dhiibaan qoryaha ha sheegaan inay yihiin ciidanka inay yihiin waxaa intaas soo artay mas-uuliyiinta dowladda weli alla awaamirta uma hoggaansamin qoryada shikayaashaa la wataa beekaamidaa la wataa saraakiisha howlgalka loo diray adinka ayaa xil saaran anigoo aan ugu horreeya xil saaran inay fuliyaan amarkaas cid kasta ee qore dhashiika ah ku wadata iyo beekaami wadata iyo sabana wadata waa hadda wixii laga bilowdo waa laga hortagaa waa la qabanaa jadboontiga lagu joojinaa waa la taajinaa amarka in u hoggaansamaan rabaa mas-uulkii inta beekaa am iyo dhashiika asagoo wata inta la joojiyo xabad bilaabana askariga la soo xiri maa qoraga wata beeka amka wiilka watana oo staafka u ahana la soo xiri maa waxaa la soo xiraa qofka mas-uulka ee waardiyeynayaana loo haystaa booliiska waxay eedaynayaan cidduu doon ha ahaado waxaan eedaynaynaa mas-uulka ay waardiyeynayaan intaas ogaadaan asagaa loo eedaynaa oo maxkamadda laga waca asagaa jabshay amarkii madaxda asagaa jabshay golaha wasiirada sharciga soo saareen ayaga ayaa maxkamad loo geyn doonaa waxaan rabaa inaan ka hadlo qodob labaad oo ah ramadaana lagu jiraa magaalada muqdisho weli waxaa ka socda maandooriyi iyo goobaha fawaaxishada ah ee runtii ayadoo ramadaan lagu jiro loo imaanahaya meelan cunana lagu cunayn laguna shiraynin ee lagu talagalay in balwad lagu isticmaalo oo rag iyo dumar iskugu yimaadaan inay mamnuucta iyadan laftirkeeda gudoomiyaha gobolkana dukumiinti ka soo saaray lamana ogola ayaga laftirkooda hoteelada la yaqaano iyo dadkii sheekaysanaya waa la garanaa laakiin meelaha liida ay ka mid tahay oo hodan qaybo ka mid yihiin lama ogola inay furaadaan صح bulshadana lagu dhibaateeyo sumcadda gabdhaha Soomaaliyeedna lagu dhibaateeyo قولست والله ma ogolin ciidanka booliiska Soomaaliyeedna ayagoo tix raacaya maamulka gobolka Banaadir qoraalada ka soo saareen waa la xiri doonaa insha Allah ta'ala iyo awaamirta madaxa qaranka inay siiso intaas waxaan dheer rabaa inaan isla hadlo qodobka saddexaad ah meeshaan waxaan galabtay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo anigu kula wareejinay taliyaasha qaybaha iyo saldhigyada 20 baabuur oo lagu talagalay amniga magaalada Muqdisho in loo qayb qaato baabuurtaas nala kuma deeqin sidii hore lagu deeqi jiray
qoran ugu sukaaya sawirtana ma jirin oo nagu doonsiisay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa gatay ayaga ayaana ku shaqeynaya waana hantidii ugu horeysay oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed inta gataan ay ugu talagaleen shacabka Soomaaliyeed inay ugu adeegaan ما شاء الله إن شاء الله تعالى مرك ugu horeysana ma noqon doonto marka ugu dambeysana ma noqon doonto way bada doontaa inaan xabsiya dhisano way bada doontaa inaan saldhigyada dayactirano way bada doontaa inaan ciidanka labis ka bedelno way bada doontaa inaan baabuurta iyo maaragtay dayactirka intaba inaan samaysano anagoo cid weydiisan insha Allah ta'ala cidii waxna siisanaysana oo ka qaadayna inaan ka maarno ma waa ma santiin ما شاء الله قوليست